السلام عليكم وبرنامج كان دعوين كعالم كقيبتي سي لبا waxaan maanta ku soo qaadanaynaa 14 jirkii dilka toogasho lagu xukumay gudaha dalka Mareykanka waxa ay qaadatay 10 daqiiqo si loogu xukumo dil sidoo kale 70 sano ayay ku qaadatay si loo ogaado in uusan wax dambi ah lahayn cadaaladdu waa tii mar uun soo ifbaxdo haba qaadato kumanaan sano George Sidney Jr. wuxuu ahaa qofkii ugu da'da yaraa ee dil lagu xukumo qarnigii 20aad gudaha dalka Mareykanka isaga oo 14 jir ah ayaa lagu dilay kursiga korontada intii lagu guda jiray maxkamadayntiisa ilaa maalintii la dilay wuxuu had iyo goor ku celcelinayay in uusan wax dambi ah lahayn waxa lagu soo eedeeyay in uu dilay laba gabdhood oo cadaan ah Britney oo 11 jir ahayd iyo Mary oo 7 jir ahayd ayaa meydkooda laga helay meel u dhow guriga uu kula noolaa waalidiintiisa George xilligaas garsoorayaasha oo dhami waxay ahaayeen cadaan waxayna maxkamadayntiisu socotay 2 saacadood 10 daqiiqo kadibna xukunka ayaa lagu riday waalidiintiis ayaa loo hanjabay waxaana lagu hor joogsaday inay hadiyado u geeyaan wiilkooda gudaha qolka maxkamadda ka hor inta aan la dilin George waxa uu 81 maalmood ku qaatay xabsiga waalidkiis ma aanu arag xitaa qareen u dooda ma helin wuxuuna ku xirnaa xabsi 80 kiiloomitir u jiray magaaladii laga soo waday markii hore waxaa madaxa looga xiray koronto xajmigeedu dhammaa 5380 volt si ay u disho ugu dambeynna wuu ku dhintay 70 sano kadib 2014 garsooro jooga gobolkiisii North Carolina wuxuuna sheegay in birta lagu dilay labada gabdhood ayuu miisaankeedu dhammaa 19 kilogram wax ka badan Georgina awood uma lahayn inuu qaado shaygaas iska badaa inuu ku garaaco gabdhaha ilaa ay ka dhintaan waxa uu yiri George wax dambi ah ma lahayn qof ayaa wax kasta isugu geeyay in uu dambiga isaga dusha ka saaro waayo waxa uu ahaa madow George 1979 ayuu dhashay waxaana la dilay 1944 xilliga madowga oo dhami waxay ku noolaayeen cadaalad darro ka jirtay geeyiga Mareykanka la soco qaybta saddexaad ee barnaamijkan dhacdooyinka fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe si aad ula socoto muuqaaladeena xiga waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalka